kadib markii mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda Cabdiwali Sheekh Axmed oo muddo laga dhul sugayay isla markaana dood dheer kadib golaha baarlamaanka oo codka kalsoonida siiyay ayaa qaar ka mid ah madaxda jaaliyadda ganacsatada ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika waxa ay si wada jir ah u soo dhaweeyeen golaha xukuumadda cusub ayagoo dhanka kalena baaq iyo dardaaran u diray xukuumadda Cabdiwali Sheekh Axmed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolkani Western Cape ee dalkani Koonfur Afrika Sheekh Daahir Cali Basto iyo Xadiis Xaaji Aadan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda ayaa ugu horeyn ka hadlay aniga kulli qof ahaan fikirka aan qabo Soomaaliya maanta ma taagan xilli wax la mucaarado sababta aan sidaas u leeyahay waxa waaye waxaan xog ogaal u nahay waxa jira taa ayaa keenaysa in aan anagu taageerno oo anigu shakhsiyan aan taageero hadba meesha aan isleeyahay habeen bay nidaam xaggiisa u dhowdahay sababta oo ah waxaan xog ogaal u nahay baahida aan u qabno nidaam dowladnimo iyo kala dambeyn sababta koowaad aan u taageerayno waa helitaanka arrinta iyada ah waxaa kaleeto aan u taageeraynaa xusuusta aan u leenahay dhibaatada aan kala kulannay dowlad la-aantana waan u taageeraynaayo muddadii ay dowlad la-aantu jirtay shacabka Soomaalida waxa uu isaga isu geystay waan mataqaanaa ayaan xog ogaalka aan u nahay daraaddeedna waan u taageeraynaa arrimahaas oo dhan marka la isku daro waxaan leenahay dowlad jiritaankeedu waxa uu wakiil ka yahay dhismaha iyo horumarinta bulsho kasta oo ku dhaqan adduunka iyo xawaali ninkeed loo kala tagay ninkii wasiir ee isaga xil shacab inta luqunta loo galiyay kaalintiisa gudan waaya day berri uma isagana kulliyada inta lagu dhaga banaanka la joojin doonaa isagoo waliba taariikhda ku ceebaysan bismillahirrahmanirrahim xasan kaafi waa maasantay kulay waxaan ka hadlayaa fikirkayga shakhsiyadeed anoo ah shakhsi muwaadin Soomaaliyeed ee ku saabsan golaha wasiirada ee la ansixiyay dhawaan kulay waxaan rajaynaynaa waan u ducaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo kuwii dalka oo maanta ay dhibaato fara badan ka jirto horey dhibaatooyin fara badan u soo maray oo mugdi ku jira maaragtay qadiyadii Soomaalida masiirkeeda in kuwii ka bixin lahaa mugdiga fara badan inuu Ilaahay ka dhigo ayaan marka hore ugu ducaynayaa sababtoo ah in wax la diido oo maaragtay nidaam darro waddan ku jiro yani dhibaato nagu filan baan ka soo aragnay laakiin haddana iyadoo ay sidaas tahay waxaan anigu dareensanahay kacadiis ahaan in aynan ahayn golihii wasiirada ugu fiicnaa ee waddanka hogaamin lahaa 20 sano kadib maanta waxay noqon doontaa macada waxaynu sheekadu maraysaa in la yiraahdo ciidamada Soomaaliya xoog leh loo sameeyo si nabadooda loo soo waxay maraysaa in la yiraahdo raali kama ah wadamada dariska in ciidamada Soomaaliya loo dhiso ilaahay baa ku dhaarinay halkeen maraynaa marka waxaan rabnaa in laga saaro hawshaas iyada wasiiradii ka saar lahaa inay noqdaan waa soo dhaweynaynaa in wasiirada la doorto shalay laakiin waxaa loo baahan yahay waxqabadkooda inaan aragnaa anigoo ah Sacdiye Nuur Farax oo ku nool Koonfur Afrika waan soo dhaweynaynaa golaha wasiirada cusub waan u hambalyeeynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa niyadsan iyo kalgacal magacaabida golaha wasiirada cusub si kastaba ha ahaatee golahani cusub ayaa noqonaya golihii labaad oo ay yeelato dowladda lamana oga waxa ay kaga bedelaan doonto xukuumadii hore xasan kaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Hong Cable Koonfur Afrika